Ugu dambeyn, fanaanka Ilayare waxa uu ka degay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Taasi ayaa noqotay mid ay aad ugu farxaan dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed kadib markii aynu ogaanay in muddo uu ku xanuunsanayo dalka dibaddiisa ee caasimadda Kenya ee Nairobi. Ugu dambeyn, fanaanka Ilayare ayaa maanta ka degay caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya. Muuqaalkan ayaynu ku faahfaahinaynaa sababta safarkiisa. Ugu horreyn, bal daawadayaasha qiimaha badan waxaynu si xushmad ku dheehan tahay idinkaga codsanaynaa fadlan intaynu u guda galin sheekada oo dhammaystiran inaad channelka subscribe dhahtaan gambalaalkana furato si aad uga mid noqotaan daawadayaasha qiimaha badan ee bartan ku xiran. Muuqaalkan aad share garaysaan si uu u gaaro dad badan oo Soomaaliyeed oo ducada la garab istaaga walaalkan Ilayare. Like-tana waxay muhiim u tahay inuu muuqaalka heer sare gaara. Waad ku mahadsantihiin sida aad goor walba noogu xirantihiin. Intaasi kadib, sheekadeena maanta waa fanaanka Iile Cabdulaahi Nuune Ilayare oo aad ogeedeen halkan aad kala socoteen inuu ku xanuunsanayo caasimadda dalka Kenya ee Nairobi, ayaa ugu dambeyn saaka ka degay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxa uu sheegay in halkaasi uu u tagay si looga sii qaado dhulka hooyo, dibaddana loogu qaado si uu u soo helo daryeel caafimaad maadaama uu la dhibaataysnaa muddooyinkii u dambeeyeyba buro kaga taalla dhinaca iyo madaxa. Buradaasi oo dhowr jeer uu la galay isbitaal. Xitaa waxaad ogeedeen in maalin horeeta uu soo diray dardaaran aad looga naxay ilaa 50,000 oo Soomaali wax kor u dhaafayeen ay kaga falceliyeen arrinkaasi murugada lahaa ee ereygii dhammaan qalbiga taabtay ee ahaa Alle ayaan idinkaga tagay carruurteeda. Ugu dambeyn, fanaanka Ilayare waxaynu Alle uga baryaynaa inuu Alle ka soo qaado xanuunka hayo ee dhibaatada ku ah goor walba iyo meel walba uu joogo. Idinkana waxaynu si xushmad ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa inaad qaybta hoose commentiga ugu duceysaan si walaalkeen Alle uu caafimaad u siiyo. Mahadsanidin.